السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا رمانتين بحمل بوجوكتان أصحابتي دقالقة ولكن حسين جماع waxaan maanta runtii aan rabaa in muuqaalkan aan kusoo koobo waa kuwama brokerada maanta caalamka u fiican amaba haddaan si kale u dhigo waa kuwa toddobada broker ee maanta caalamka ugu fiican brokerada aan doonayo maanta inaan soo gudbiyo runtii waxyaalaha ay leeyihiin ama waxyaalaha ay u kala duwan yihiin ayaan sheegi doonaa iyo magacyadooda waxaan doonayaa inaad qayb ka mid ah aad ka faa'iidaysataan hadbaba kuwii aad ka heli kartaan ama applicationkiina markaa aqbala khaasatan dadka qurbaha ku nool iyo dalalka maxaa la yiraahdaa marka ay sharciyadu ka jiraan oo haysta sharciyada deganaanshaha ah intooda ugu badan waxay u fududahay inay markaasi brokerada aan sheegi doono ay helaan ma garanayo kuwa ku nool dalkii Soomaaliya sida ay brokerada marka ay u helayaan laakiin waxa ka faa'iideysan kara cid walba oo markaasi sharci leh isla markaana deganaansho ku haysta dalalka kale ee maanta Soomaalida ugu nool yihiin waruntii 10 aad muhiim u ah waxaana aad maalmahan la ii weydiinay brokerkeen isticmaalaan Faransan jooga Ingiriiskan jooga Sweden baan jooga Denmark baan jooga Ingiriiskan jooga Mareykankan jooga brokerkeen isticmaalaan waxaan markaa rabaa inaan bal soo gudbiyo toddobada broker ee ugu fiican caalamka iyo waliba sida ay awaadka u kala qaateen iyo waxyaalaha ay u kala fiican yihiin waxyaalaha ay brokerada u kala fiican yihiin ama ay ku kala hormareen waxa kamid ah spreadka iyo commissionka waxa kamid ah customer serviceka sida markaa dadka loola macaamilo waxa kaloo kamid wax loo yaqaan trading platform systemka markaa lagu trade garanayo ama platformka la yiraahdo waxa uu markaa yahay iyo sida uu kala fiican yahay ayadoo markaas la fiirinayo xagga softwareda isticmaalaan mobile applicationada isticmaalaan iyo waxyaalaha la midka sida website-yada isticmaalaan waxa kaloo markaas la fiirinayaa oo lagu kala qiimeeyaa aaminaada ay website-yadaasi ama brokeradaasi markaas ay leeyihiin inta ay jireen iyo waliba institutionada ay markaasi hoos tagaan ama waxa markaasi gacanta ku haya waxa jira broker badan oo maanta caalamka jira oo dadku ay isaga trade gareeyaan laakiin institutionada iyo hay'adaha control aysan ahayn kuwa adag ama ay yihiin kuwa ka yimaada dalal aan sharciyad badan ka jirin laakiin toddobadan broker aan maanta idin sheegayo waa toddoba broker oo runtii dalalkan westernka ay leeyihiin isla markaana hoos taga bangiyo waaweyn iyo institutionada waaweyn isla markaana ku shaqeeya sharciyo adag intooda ugu badan waa brokero ay iska leeyihiin runtii dalal sharciyo badan ay ka jiraan isla markaana ay fududahay in mataqaanaa qofku wixii ka lumaa qaab uu raacdo oo markaasi uu leeyahay waxa kaloo rabaa inaan ayadana aan ku daro brokerka aan idin sheegi doono noqon doono brokerka ugu fiican asagana markii aan ka fiirino dhankanaga xagga islamic systemka ah runtii wuxuu leeyahay ama inoo offer garanaya runtii feature fiican ay kamid ah inuu swap fee nooga dhigo in islamic system uu leeyahay iyo arrimo kale lamid ah waxaan markaa aan runtii ugu talagalay in qof walba anaga inaga mid ah uu bal try gareeyo uu fiiriyo inkastoo aniga laba ka mid ah aan akoona ku leeyahay midka hadda aan raba number 1ka ah ama noqday oo caalamku dhan uu ka sheegay oo maxaa la yiraahdaa runtii ku guuleystay inuu number 1ka yahay ama brokerka u fiican maanta caalamka anoo wali ka akoon ku mali laakiin waxay noqonaysaa markaa inaan igana bal aan fiiriyo oo dadku waxa ay sheegayaan aan qayb ka ahaado oo isla markaa anigu naftirkayga aan ka faa'iideysto inkastoo aanan ku lahayn account muuqaalka marka maanta wuxuu ka hadli doonaa arrimaha oo kaleeto iyo arrimo runtii ku saabsan marka ku soo dhawaada muuqaalkii oo aan runtii isku day doono inaan bal aad u soo koobo si aad markaa uga faa'iideysataan toddobadaas broker oo maanta noqday toddobada broker ee adduunka ugu fiican brokerka toddobaad osban ka soo bilaabanaa ilaa 1 toddoban ka bilaabanaa 6 5 4 korban u wadanaa midka ugu dambeeyo wanka ayaa ugu fiican midka toddobada ah ayaa intooda ugu hooseeya saasan marka loo wadayaa toddobadan broker oo aan sheegayo markii aan runtii aan idin sheego ayagoo qoran oo linkigooda iyo meesha aad ka raacaysaan waxaan idin soo gelin doonaa descriptionka waxaan ku soo daabici doonaa website-kayga huseenjamac.com oo aad intiina badan ba aad taqaanaan si aad markaa intaad click siisan aad uga raaci kartaan mid walba isla markaana aad u sign up gareyn kartaan haddii aad markaa doonaysaan haddii aan marka bilaabo midka toddobaad waxaa la yiraahdaa magaciisa Pepistone ayaa la yiraahdaa waa midka loogada iska leh ama calaamadda iska leh brokerkan waxaa laga leeyahay dalka Australia ayaa laga leeyahay runtii waa broker fiican markii laga fiiriyo dhan badan sida maxaa la yiraahdaa platformkiisa iyo maxaa la yiraahdaa custom servicekiisa waana broker runtii soo noqday brokerada adduunka ugu fiican mid kamid ah magaca ayaa la yiraahdaa waxaan laga leeyahay dalka Australia marka waa brokerka markaasi toddobaad weeye
brokerka lixaad waxaa leeyahay forex.com. brokerkan waxaan isticmaalayay runtii muddo aad u fara badan ayaan isticmaalayay, waana brokerkii ugu horreeyay oo aan sidaba broker ahaan u furto. waxaa laga leeyahay dalkaani Mareykanka. runtii broker asaguna magac leh, waana broker aad loo yaqaano oo ballaaran ama waa company weyn. asaguna runtii waxyaalo badan feature aad u fiican ayuu leeyahay. inta aniga aan ka aqaan waxaa kamid ah xagga customer service-ka iyo waliba arrimaha la midka aad ayuu u fiican yahay. wuxuu kale aad ugu fiican yahay qofkii isticmaala ayaa yaqaana markii lacagaha lagala soo baxay withdrawga waqti yar ayaa lacagaha asagana markaasi looga helaa, iyo arrimo kale feature ayuu fiican ayuu leeyahay. inkastoo meelaha qaarkood uusan ku fiicnayn, haddana lacagta depositka oo la gashanayo asaguna runtii ma ay badna, ilaa $50 ayaa ugu yar lacagta markaasi lagu bilaabi karo, gasto aysan $50 ba hadda aysan waxba sameynaynin. laakiin as far as I know brokerkaas maadaama aan muddo isticmaalayay waa broker fiican, inkastoo anigu uusan hadda favorite-kayga ahayn, laakiin qofkii doonayay inuu isticmaalo wuu isticmaali karaa, wuuna testgareyn karaa. forex.com asaguna wuxuu leeyahay loogada halkaa ku taala, linkigiisana waxaan soo gelin doonaa qoraalka aan kusoo daabici doono website-kayga. midka shanaad magaciisa waxaa leeyahay X Trade Broker ayaa la yiraahdaa. waxaa laga leeyahay dalka Poland ayaa laga leeyahay. asaguna waa broker runtii aad u ballaaran xagga Yurubkana runtii si aad looga yaqaano. waxa waa ayaamahan dambe runtii kamid ah brokerada ugu cadcad qaaradda Yurub. wuxuuna runtii noqday broker aad u ballaaran, waana runtii bangi ayaa markaasi manage garaya ay leeyihiin dalkaasi Poland. waana broker runtii asaguna aad iyo aad runtii macruuf ooga ah dadka Yurubta degan. asaguna wuxuu leeyahay loogadaasi, waxaana uu noqday brokerkii shanaad markii la fiirinayay xagga codaynta toddobada broker ee ugu fiican adduunka aynu maanta joogno. brokerka afraad waxaa la yiraahdaa London Capital Groups ayaa la yiraahdaa. waa broker laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska, waxaana sidoo kale asagana maamula bangi uu leeyahay dalkaasi Ingiriiska. asaguna runtii waa broker asaguna aad iyo aad macruuf ooga ah xagga iyo Ingiriiska. ayaamahan dambana asaguna runtii ahaa broker weyn oo aad loo isticmaalo. brokerkani dhowr mar ayuu noqday brokerka ugu fiican adduunka, laakiin hadda waxaad moodaa inuu hoos dhac uu kusoo yara dhacay. asaguna runtii linkigiisa ama loogadiisana waa sida aad halkaa ka arkaysaan, waana isna broker runtii weyn. runtii inta ugu badan brokerada adduunka hadda maanta jooga kuwooda ugu badanba waxaa iskale ama ugu fiicanba Mareykanka iyo Ingiriiska. waxaa laga fiiriyana waa xagga trustiga, in aaminada la aaminayo lacagaha markaa ku jira iyo cidda markaasi maamusha weye waxyaalaha ugu muhiimsan iyo serviceka ay markaasi bixinayaan. brokerka saddexaad waa brokerkaygii mar badan baad iga maqasheen, waa Onda. sida arkaysaanba loogadiisa waa halkan. asaguna runtii waa brokerkaygii labaad, muddo ayaan asagana runtii aan isticmaalayay. waa broker fiican, inkastoo ayaamahan dambe feature aad u fiicnaa oo aan runtii ku isticmaali jirnay uu joojiyey, oo ah swapkii freega ahaan jiray ayuu runtii ka daayay freegii oo charge buu ka dhigay, taasoo ka dhigana inuu markaasi interest uu leeyahay. waxa uu sameeyay waxa way marka dadkii hore oo isticmaalayay faraha ayuu uga qaaday oo swap freega u ahaa, laakiin qofkii dambe oo akoonka furanaya ayuu u diidayaa. dhowr asxaabteyda kamid ah ayaa arrintaasi ay ku dhacday. anigu waxaan u qabay inuu weli swapkiisu uu free yahay, laakiin sidiisa kale inta markii laga reebo waa broker asaguna runtii fiican. specifically dadka Mareykanka ku noolna waxaan oran karayaa waa brokerka ugu fiican oo ay haysteen muddooyinkii ugu dambeeyay. brokerka labaad waa CMC Market. CMC Market asaguna waxaa laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska. CMC Market runtii weligay account kama furanin, mana aan runtii aan dabagelinin. laakiin as far as I see meeshaan resultiga soo baxday oo looga hadlayay brokerada ugu fiican adduunka. waa broker asaguna aad u fiican, sida laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska. calaamadiisana waa sida aad halkaa ka arkaysaan. adaad linkigiisa doonaysaan sidaan hore u sheegayna waxaan soo gelin doonaa website-kayga asagoo tafasiran iyo weliba meesha aad ka raaci kartaan. dadkan badan Ingiriiska Yurubta jooga dabcan way isla isticmaali karaan. waxa alla waxa Yurubta jooga kuwa Ingiriiska ay isticmaali karaan, waxa Mareykanka joogana kuwa Mareykanka ay isticmaali karaan. haddaba marka su-aasha meesha taala marka waxay tahay, waa kee marka brokerka ugu fiican maanta adduunka bal qiyaasa. runtii resultigan aad ay ii cajabisay. brokerkana runtii broker aan saa u fiican u yahay uma aanan qabinin, laakiin markii aan arkay inuu noqday brokerka adduunka ugu fiican la yaab ayay igu noqotay. wuxuuna igu abuurayba jacayl cusub oo igu qasabtayba inaan halkan caawa
aan ba ka apply garayo real accountkiisa ama aan account ka furto si aan markaa u fiiriyo waxaa la yiraahdaa runtii brokerkaasi IG baa la yiraahdaa ama IG groups ayaa la yiraahdaa runtii waa broker aad u balaaran asna laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska hadda ka hor dalka Mareykanka uu ka shaqeyn jiray laakiin waa laga xiray dib ayuu hadda markaa muddo hal sano ka hor ugu soo laabtay hadda ilaa iyo sanadkii aynu soo dhaafnay 2019ka qaybtiisii dhexe ilaa iyo hadda ayuu ka shaqeeyaa dalkani Mareykanka laakiin markii aan runtii fiiriyay ratingka uu haysto iyo sida loo amaanayo iyo isla markaasi meelaha maxaa financial institutionada kala saara brokerada iyo sida mataqaana loo kala saaro iyo qualificationka adduunka maanta aynu joogno wax walba waxa loo sameeyay tartan iyo qualification baa loo sameeyay marka aad fiiriso marka waxyaalaha uu ku soo baxay waxaad arkaysaa inuu way beerar uu yahay dhan walba markii laga fiiriyo brokerada maanta caalamka jooga haddii ay tahay xagga customka dadka si mataqaana loo safgarayo haddii ay tahay platformka uu haysto haddii ay tahay system walba uu haysta waxyaalaha uu haysto waxa kamid ah the Islamic systemka xataa waa uu leeyahay qofkii doonaya markaa inuu account ka furto oo markaasi meel walba caalamka joogo wuxuu helayaa swap free iyo wax alla wixii la mid ah iyo system islaamiga oo markaasi ka ilaalinaysa xagga interestiga ama waxa loo yaqaan ribada runtii brokerkani broker aad iyo aad hadda aad mudid inuu uga horeeyo brokerada kale ee maanta caalamka jooga waa broker aad u fiican dabcan inta wixii laga qoray waxaan ahayn oo aan runtii aan ka ogahay oo specific ah oo experience-gayga ah inaan account ku leeyahay ma ay jirto laakiin in reality-ga aan la xaqiri karin waxa weeye waa best broker around the world right now magaca ayaana la yiraahdaa qofkii marka doonaya uu fiirin karaya account uu ka furan karaya uu tijaabin karaya aniguna waxaan kamid ahay dadka doonaya markaasi inay tijaabiyaan si markaasi uu u arko bal waxa laga sheegayo brokerkaasi inta ayaa marka kusoo koobnaa runtii qeexidii ama falanqayntii aan ku sameeynay brokerada todobada ah ee la soo bandhigay aduunka maanta ugu fiican haddii aad fadlan ku cusubtaa YouTube channelkayga subscribe gare beelka furo haddii ay jiraan mid kamid ah brokeradan aad isticmaasho sida aniga hadda labada aan sheegay oo onda iyo forex ah labada anigu aan isticmaalo ma jira brokerkan todobada xaba ah ee aan soo sameeyay ee aan soo gudbiyay iraahdii anigu ma sameeynin mid kamid ah oo aad isticmaasho oo aad nala wadaagi karto experience-gaaga ama waxa aad ka aragtay haddii fadlan ay jirto hoos noogu soo qor comment-gaaga haddii aysan mataqaana aadan isticmaalina si aad u aragto isla markaa hoos noogu soo qor waxaanu ka discuss garanaynaa topicaas maantayto kee ugu fiican weeye sidaas oo aragtaa maxaa la yiraahdaa brokerkaasi adduunka la yiri uu ugu fiican yahay ma jira qof idin kamid ah oo isticmaalo iyo wixii la mid ah wixii su'aalaha markaasi iyo wixii fikirkiina hoos noogu soo qora iyo waliba sida aad u aragtaan intaynu markaa dib isaga soo laabanayna waxaan kaga tagayaa sida iyo Ramadan Kareem hana iloobina fadlan inaad subscribe-ta iyo beelka iyo comment-ga iyo like-taba aad markaasi isa soo raacisaan si aad u taageertaan channelkiina oo ay salaamaya assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh